waxaa runtii aan maanta rabaa inaan ka hadlo amaba saacadihii u dambeeyay warbaahinta ka hadlayay mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland oo ka hadlayay arrimaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo taliyayaashoodaba waxaa runtii marka u horeysa aan rabaa inaan dul istaago ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ah difaaca ragga u taagan iyo sugidda ammaanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland shuruucda dalka u taalaana ay xaaraantinimaysay wax ka sheegooga iyo faafinta xarumahooga iyo siraha ciidamada waxa hadaba nasiib darro weyn ah intii ay yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee la doortay 31 May 2021 khaasatan mudanayaasha ka soo baxay xisbiga wadani inay caado ka dhigteen aflagaadada iyo wax ka sheega iyo ka been abuurka iyo gacan u qaadista ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaad ogeydeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo ku kala sugan dhammaan xuduudaha dalka iyo xarumaha golayaasha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo u taagan sugidda amniga oo cadawga Somaliland uu markasta ku foogan yahay dhinacay doontaba ha ahaatee inuu weeqo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland marka laga hadlayo cadawga Somalilandna waxa uu iskugu jiraa ku dibadda iyo ku gudaha ah ka dibadduna waxa fursad siiya ka gudaha ee maalin walba qarannimada iyo ciidamada waxa weeye ku aflagaadoonaya waxa runtii aan rabaa inaan ummadda shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland xasuusiyo dhacdooyinka u dambeeyay ee maalmihii u dambeeyay ay caadaysteen ama bilihii u dambeeyay mudanayaasha golaha wakiilada khaasatan kuwa ka soo baxay xisbiga wadani waxaad ogeydeen in xarunta golaha wakiilada oo aad dibna u raaci kartaan maanta haddaad dib u eegtaan kuna jirta waxa weeye baraha bulshada ku xidhiidho ama social media haba dib looga tix raaci karo iyada oo xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan uu gacan u qaadayo askari haybadii ciidannimo ku labisan isla mar ahaantaasina ku guda jira shaqadii qarankan Jamhuuriyadda Somaliland uu u hayay ay cadaanahay waxaanu ka sugaynay shirgudoonka golaha wakiilada oo ummadda Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan eegaysay bal talaabada uu ka qaado ninkii waxa ku kacay waxa weeye ciidanka qaranka iyo askarigaasiba gacanta u qaaday waxa la leeyahay talaabo laga qaadayna ma jirto way sii socotay waxa ay maraysaa maanta in aflagaada toos ah loo geysto madaxda ciidamada qaranka taliyayaashooda iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo howlwadeennada kale ciidanka ee ku sugan xarumaha golayaasha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu xisbi ahaan aaminsanahay sida sharcigu u xaaraantinimo yeelay in wax ka sheega ciidamada qaranka ay xaaraan u tahay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland aanu ku garab taaganahay difaaca dalka iyo kuwa ku aflagaadoonaya ee haybadda iyo ciidamada qaranka meel kaga dhacaya in ay talaabo waafiya ka qaadaan isla mar ahaantaasina waxay ku matalaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland intaasi kadib waxaan u soo jeedinayaa shirgudoonka golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee golaha wakiilada sharafta badan ee ka soo baxay xisbiyada kale ee kulmiye uu ka mid ka yahay mudanayaashaasi oo ku sifoobay akhlaaq wanaagsan dadka Jamhuuriyadda Somaliland maanta guda iyo dibadba waxa weeye ay sugan tahay inay ummad matali karaan oo waxa weeye ay maanta mas'uuliyadii loo doortay ay ka soo baxeen shirgudoonka golaha wakiilada waxaan soo jeedinaynaa inay talaabo ka qaadaan kuwii shalay ciidamada xarunta golaha wakiilada gacanta ugu qaaday ee ilaa maanta aan talaabo laga qaadin
waxaanu u sheegaynaa kuwa ilaa maanta u hanjabaya ciidamada ee ku aflagaadoonaya cid allaale iyo cid aad waxyeeli kartaan ma jirto nin la soo doortaa tahay bulshadii aad matalaysay inaad matashaad xaq u leedahay inaad arrimaha qaranka socda si asluub leh oo xeerasha dalka waafaqsan aad uga hadasho ayaad xaq u leedahay ragga ilaa xalay ka hadlayay shirarka hayay ilaa maanta hadlayay laha waxa weeye marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo ayaanu tale iskugu imanaynaa golaha wakiiladu hadduu fasax ku jiro iyo hadduuna fasax ku jirin iyo hadduu ka soo noqdo intaba wax allaale iyo waxaad samayn kartaani ma jirto maalin kaste dhaawac baad dalkan ku tihiin haddaad tihiin xildhibaanada ka soo baxay xisbiga wadani maalin walba qarankan iyo shareecada islaamka wax aan waxa weeye u qalmin oo ummadii nala yaaban tahay oo la leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland ma waxa noocan ay dugsanaysaa ayaad ku sifoodaan haddaad tihiin xildhibaanada xisbiga wadani ka soo baxay waxaad ku kacaysaan oo aad wadaan wax lid ku ah shareecada islaamka iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waynu ognahay bilihii u dambeeyay wixii dalkan ka dhacay ee ummaddu gees ilaa gees ay nala yaabanayd ka aan diinta islaamka haysan warkiisa badda wax la qaadan kara ma idinku difaacaya xildhibaan shareecadii islaamka waxay reebtay iyo wuxuu qawaaniinta jamhuuriyadda Soomaaliland bar reebay ku dhacay inaad ku difaacdaan xisbinimo iyo siyaasad ma ilaahay baad ka dhuumanaysan haddana maanta aad ku darsateen in aad wax ka sheeg ciidamada qaranka iyo saraakiisha ciidamada aad maalin walba gidaarada la taagantiin golaha wakiiladu markuu soo noqdo talaan waxaad iskugu iman kartiin ma jirto haddaad soo noqotiina de golihiinni baad ku soo noqoteen xeer dajin baad tihiin xeerarka dalkan u yaala ayaa la inii igmaday wax ka bedelkooga iyo curintooda iyo kaabistooda inaad ka shaqaysaan la iniima igmanin inaad shareecada islaamka wixii ka hor imanaya aad dhiri gelisaan inaad wax shareecada islaamka ka hor imanaya aad ku kacdaan in qarannimada Soomaaliland aad wiiqdaan cid allaale cid inaga yeelaysa ma jirto waanu ognahay propagandada cadawga Soomaaliland dibadda ka soo maleegayo ibriiqa loo adeegsanayo gudaha ku sugan in qaar Soomaaliland ku sugan ay ka mid yihiin kuwa hala mid noqonina kuwa waxa weeye hala mustawa noqonina noqda dad matalayaal dhab ah oo jamhuuriyadda Soomaaliland qarannimadeeda ka turjuma ducahaana dadkii soo doortay ka turjuma cid allaale cid inaga yeelaysa ma jirto ciidamada qaranka waxaanu ku garab taaganahay sugidda difaaca iyo edbinta darajadu doona hasite ka maalin kasta dhaawacaya qarannimada iyo wadajirka ummadda iyo wixii shareecada islaamka ka xun waxaanu bogaadinaynaa ciidamada booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyayaashooda sida ay mar kastaba waxa weeye ugu foogan yihiin cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland la dagaalanka mukhaadaraadka oo aynu ognahay guulaha waxa weeye la milaawaanka ah ay ka gaareen haddaad tihiin mudanayaasha xisbiga wadani ka soo baxay waxa muuqanaysa inaad ka xun tihiin dhammaan tallaabooyinka ciidamada qaranku ay difaaca dalka ku sugayaan booliisku ku sugayo ee lagula dagaalamayo mukhaabaraadka waxaad dhiirinaysiin oo muuqanaysa in dalkan si sahal ah waxa weeye loo soo galiyo mukhaadaraadka idinkoo maanta la iniga fadhiyo inaad xoojisaan ama aad curisaan xeerar casri ah oo waxa weeye la jaan qaada adduunyada iyo maanta waxa weeye sida fudud ee mukhaadaraadka loola dagaalami karo inaad ku garab istaagtaan ciidamada inaad cadow aad ka dhigataan la dagaalanka ay mukhaadaraadka la dagaalamayaan oo ay idinku aad noqotaan kuwii koobaad ee ciidamada dacaayadeynayay